السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صومالي ذا بالكسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقال كيغا اي مقال كيغا تقانو واني دمد السلامي waxaan rabaa inaan ka hadlo arin yar oo xasaasiyo maxaa la isha shalay ilaa habeen hore ilaa maanta qabsatay Facebook oo wax xasaas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka hadlo rabaa soo waa ina soo wada gashaan moodo joogtaan man i maqashaan 300 ku jirta hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la ii sheeg oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la ii sheeg xafladii bay dadka maxaa la ii sheeg inta ugu badan dadka ay hadal hayeen waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la ii sheeg muhiim inaan idinka dhaho dadka i daawanayo dhan waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo raba inaan idinka dhaho maxaa la ii sheeg horta xafladda waxa aan anaga dhiganaynay waxay ahayn aroos waxay ahayn sanad guuro maxaa la ii sheeg wax aroosna wax ma dhaamin waxay ahayd sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga marka is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo wax asmaan dhigan oo wax markaas oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxa muhiim nala ahayd inaan xaflad dhigano oo maxaa la ii sheeg sanad guuradii baan dhiganay sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti ma sha Allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay sida darteed waxa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno waxaan sameeynay maxaa la isha toortadii baan afka isku gelinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku gelinay maxaa la isha waxa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan islunkano taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la ii sheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaali iyo dadka dhaqankeenan maxaa la ii sheeg yaani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay ii sheeg ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la ii sheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la ii sheeg wax madaxa la qabsado oo a'uudu billahi minash shaytaan rajiim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la ii sheeg aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la ii sheeg oo islaameed oo maxaa la ii sheeg oo friends aan ahay waa xaaskayga xalaashi ahayd hadaan afka ka shumiyo intaan toorto jirno anagoo farxad ku jirno maxaa la ii sheeg hadaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la ii sheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxa rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la ishay Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jirnaa hal mar afka iska shumina weligeedii aleedaan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama haday sanad guur dhiganay ama haday farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la ishay markay toortada jiraan waqtiga toortadooda la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadiina maxaa la ishay xafladooda ugu soo dhamaato marka waxaa la sameeyay waxa laga soo doow videogaas hadda wax idin leeyahay videogaas wax maxaa la ii sheeg waqti saas u sii dheer ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa videoga markaan toortada saas u jirnay hal mar baan dhac sina waa sii kala tagnay sidaas baa waxa laga dhigay videoga baa inta la soo qabtaa waxa lagu furay story oo maxaa la ii sheeg in waxa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la ii sheeg sii kala tagaan wax dhuuqmal horta meesha ma oolin maxaa la ii sheeg waxa sina waa anshax daro waxa idinka anshax daro ka dhigaysan dhuuqmada aad sheegaysan waxa sorto wax meesha yaala iyo wax meesha ooli karayba ma ahayn shumis yar oo ahaa sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la ii sheeg maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin Kacbe iyo Madiina gubay maxaa la ishay nin Madiina gubay
aniga iga dhigan waxa nin maxaa la isha waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxaa la isha waalan oo jin ku dhacay gabadha amasiyo maxaa la horta oday jin ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay cadaabkaas ilaahay horta cadaabka waaba geenayaaba oo maxaa la isha qaatumadii gabyay maxaa la isha asagii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inuu maxaa la ciyaalka u dhali karo hari habeen oo la tirsado oo maxaa la isha ula caytamo marka waa odaygii loo daari caliso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu yimid aan runta ka sheegay wallaahi oo billaah inaan been idin sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada aan ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo waco uu yiraahdo hey assalaamu calaykum wa calaykum assalaam hebel ma tahay haa waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaa u baahneed walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan kuu jilaayo inaad samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax la yiraahdo soo saaxiibo matiin haa soo best friends matiin haa waxaan rabaa inaan u dan sheegato si been inaan maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo tiraado maxaa lahaa waxaan rabaa inaan dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la ii waxa ku noolaan lahaydaan ku siinaya waxaan rabaa inaan gurigiisa inta tagtid oo maxaa la waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaal oo igula jiraa saano u yeelay waxaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelo horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haysta ilaahay ha ka dulqaado wax kale oo ka hadlay ma jiraan arinta muhiimada ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qaladka fahamtayna walaalayaal gabadh xaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameeynay waqtiga toortada la jaray ee farxadeena ahayd Soomahan muhiimada aan fiidiyoga u soo galay oo fiidiyo u soo duub intaas ay ahayd aan waxaan rabay inaan idinka jaahil bixi maadaama wax badan maxaa la isha isku wareerisa social media ay wadwadeen waa mahadsantiin idinkana ilaahay idin sharfo ilaahay idin karaamay khayr Allah idin siiyo waana mahadsantiin mac salaam